بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan daawadayaal iyo dhegaystayaal meel walba oo joogtaan iyo si walba aad inoo maqlaysaan ku soo dhowaada qisadeennii aad xiliyadan oo kale inooga barateen inaanu kula wadaagno tv-geenna qiso iyo waana tv oo xiliyadan oo kale aan kugu soo gudbinno qisooyin aad u xiiso badan taabanaya nolosha tii ina soo dhaaftay midda hadda aan ku jirno iyo sidoo kale midda ay suurtagal tahay inaan berrito haddii eebba ogolaado aynu gaarno waa qisooyin wax laga baran karo wax badanna laga faa'iidayo si dhaba u dhegayso oo la soco qiso waana tv qisadeenna hadda waxay ku saabsanaa doontaa ninkii saaxiibkii ugu dhowaa khiyaamay waa cajiib qofkii uu noloshiisa ku aaminay ayaa dumiyey tiisii hamiin madow oo mugdi ah oo aad u jira gudcur weyn wiil yar oo lagu magacaabay cabdiraxmaan waxa uu keligiis fadhiistay kursi duug ah oo dhex yaalay qol mugdi oo aad u yar indhihiisa waxaa ka muuqda daal qalbi jab iyo sidoo kale murugo aan la qarin karin taleefankiisa ayuu eegayey hal fariin ayaa ka soo dhacday intii uu ku jiray meel uu ka filayay fariin wanaagsan walaalow waan ka xumaha ayuu yidhi waa fariintiiye laakiin anigu maxaan ka qaban karaa maanan filayn inuu sidaan kugu samayn doono cabdiraxmaan si tartiib ah ayuu indhaha u xiray sababtoo ah qofka laga hadlayo ma ahan cadowgiisa waxa uu ahaa saaxiibkii ugu dhowaa ninkii uu walaalkii ka dhigtay ninkii uu sir kasta u sheegtay ninkii uu noloshiisa ku aaminay laakiin mararka qaar dadka ugu khatarta badan ee noloshaada waa qofka ugu dhow qalbigaaga caawa ma maqli doontaan qiso murugo leh qiso khiyaano ah saaxiibtinimada iyo cashar nolosha ku aadan ayaad halkani ka baran doontaan iyo sida ay tahay inaan uga gaashaamanno caqabadaha ku gadaaman qiso dad badani ay u furi doontaa waddada tusi doontaa muhiimadda ay leedahay in wax badan lagala socdo qisooyinka markaad dhammaadka gaarto waxaa laga yaabaa inaad dib u eegto dadka kuu dhow ee saaxiibada ah waan hubaataas waa haddaan isla gaarno dhammaadka sheekada haddaba si fiican u dhegayso sababtoo ah qisadani waa mid si dhab ah u taabanaysa qalbigaaga taabanaysa noloshaada dhabta ah cabdiraxmaan iyo mahad waxay ahaayeen saaxiibo weyn waxay yaraantooda ay si weyn u ahaayeen rag si weyn isugu dhow waxay ku wada koreen xaafadda faqri ah oo dad badan oo aad faqiiriin u ah ay ku noolaayeen oo ku taallay magaalada muqdisho labadoodu mar walba meel kasta waa lagu wada arki jiray oo maysan kala hari jirin dadka xaafaddu waxay odhan jireen haddii aad aragto cabdiraxmaan mahad meel fog ma jiro saaxiibtinimadoodu waxay ahayd mid dadka oo idilka yaabisay markii ay yaraayeen waxa ay wada iibsan jireen biyo qabow mararka qaarna kabaha ayay dadka u nadiifin jireen si ay lacago ay uga helaan oo ay noloshooda ugu maareeyaan laakiin inkastoo ay faqri ku noolaayeen waxa ay lahaayeen riyo weyn cabdiraxmaan waxa uu mar walba odhan jiray maalin uun ayaan guulaysan doonaa aniga iyo adigaba mahadna qosol ayuu ku jawaabi jiray haddii aad taajir noqoto aniga waan kula taajiri lahaa ayuu yidhi labadoodu way wada qosli jireen markaas waxayna ahaayeen rag ay ka dhexayso saaxiibtinimo aan cidna kala shakin karin sanado badan kadib cabdiraxmaan waxa uu noqday nin ganacsi yar bilaabay waxa uu furtay dukaan electronic ah shaqo adag ayuuna galay
oo si weyn ugu doonayay inuu uga gudbo noloshii adkeed. subax ilaa hamiin ayuu shaqayn jiray. mahad isagu shaqo badan ma uusan lahayn. markaas cabdiraxmaan ayaa dukaankiisa ka shaqaalaysiiyey. waxa uu ku yidhi, adiga waxaan kuu arkaa walaalkay, lacagta aan haysto adigaa ila leh. mahad aad ayuu ugu farxay warkaas. bilaha waxay isu beddelayeen sanooyin. ganacsigii wuu kabcay. cabdiraxmaan lacag badan ayuu sameeyey, laakiin hal qalad ayuu sameeyey. waxa uu aaminay qof walba, gaar ahaan mahad ayuu wuxuu u aaminay si caadi aan ahayn. wax sir ah kama uusan qarsan jirin. xisaabta lacagta, sirta ganacsiga, baasweerkiisa, dhammaan mahad ayuu la wadaagay. dadka qaar ayaa uga digayay. mid ehelkiisa ah ayaa ku yidhi, walaal, dadka oo dhan lama aamino. laakiin cabdiraxmaan wuu ka xanaaqi jiray warkaas. waxa uu yidhi, mahad ma ahan qof aan ka shakiyo. taasi waxay ahayd bilowgii dhibaatada noloshiisa la soo gudboonaatay. maalin maalmaha ka mid ah cabdiraxmaan safar shaqo ayuu aaday. muddo 7 ah ayuuna halkaasi ku maqnaa. kadib markii uu soo laabtay, dukaankii ayuu galay. waxaana uu arkay lacag badan oo bangigiisa ku jirtay in lala baxay. macaamiishii muhiimka ahaydna way ka tageen dukaankiisa. cabdiraxmaan wuu wareeray. waxa uu bilaabay inuu baaro waxa dhacay. kadib xaqiiqdii ugu xanuunka badneed ayuu ogaaday. mahad saaxiibkii oo ugu dhowaa ayaa lacagta xaday. keliya ma ahayn lacag, xitaa macaamiishii ayuu ka qaatay oo ganacsi cusub ayuu ku furtay. cabdiraxmaan habeenkaas ma seexan. qalbigiisa hal su'aal ayaa ku wareeganaysay. sidee qof walaal aad u aragtay sidee u samayn karaa waxan? murugo darteed waxa uu galay xaalad adag. dadka qaar waxa ay bilaabeen inay ka fogaadaan ganacsigii, wuuna burburay. lacagtii waa ay dhammaatay. laakiin waxaa ugu xanuun badnaa ma ahayn lacagta, waxay ahayd kalsoonida la jebiyey. maalmo kadib cabdiraxmaan waxa uu go'aansaday inuu mahad la kulmo. waxa uu aaday dukaankii cusbaa ee mahad. markii uu gudaha u galay, mahad wejigiisa cabsi ayaa ka soo muuqatay. cabdiraxmaan ayaa si deggan ugu yidhi, hal su'aal ayaan ku weydiinayaa, maxaa sidaan iigu samaysay? mahad madaxa ayuu hoos u dhigay. muddo yar kadibna waxa uu yidhi, waxaan ku masayray guushaada. qolka oo dhan wuu aamusay. cabdiraxmaan indhihiisa ilmo ayaa ka soo daadatay, sababtoo ah weligii ma filayn in masayrku uu ku imaan doono qofka aad ugu dhowaa oo mahad ahaa. waxaana uu yidhi, maalin walba dadka adiga ayay ku ammaani jireen, anigana cidna ima arki jirin. cabdiraxmaan markaas ayuu fahmay casharka adag ee xilligaa hor yaallay. mararka qaar dadka ku sacbinayay dhammaantood kuma faraxsanayn guushaada. qaar waxa ay sugayeen oo keliya wakhtiga aad dhacdo. cabdiraxmaan goortaas ayuu isaga baxay, laakiin halkii uu ka aargoosi ka fikir lahaa, waxa uu doortay inuu dib u bilaabo noloshiisa. sanado kadib waxa uu mar kale noqday ganacsade guulaystay, laakiin markaan si taxaddar leh ayuu dadka u aaminay. mahadse ganacsigii wuu ka fashilmay. dadkii ayuu waayey, sababtoo ah qofkii uu khiyaano ku sameeyey ayaa isaga sabray oo ka tegey. kadibna waxaa qabatay dhagartii iyo khiyaanadii oo la yimid. maalin uun ayuu kalsoonida dadka lumiyey. cabdiraxmaan waxa uu yidhi jumlad dad badan
qalbigooda taabatay. cadowgaaga waa ka taxadari kartaa, laakiin marka qofka kuu dhow uu ku dhaawaco waa dhaawac aad u adag. qisadan waxaa ina baraysay casharo dhowra. adigu inta aana kuu sheegin waxyaabaha aan si gaara u soo koobay oo qisadan laga bara karay, maxaad ka baratay adigu? miyaad nagula wadaagi kartaa commentiga waxyaabaha sida gaarka kuu taabtay? dhacdada noocaana adiga ma ku qabsatay? qof ay qabsatasa weli ma la kulantay? waa hagaag. haddaba qisadaana waxa aynu ka baranaynaa ama ay ka faa'iideynaa qodobada soo socda. dadka oo dhan sirtaada ha siin, kalsooni iyo taxadar isku dar. guushaada qof walba kuma farxo. khiyaanada qof kuu dhow waa cashar adag, laakiin waa cashar qofka xoog u yeesha. haddii aad maqashay qiso kaa taabatay qalbiga, la wadaag qofka aad jeceshahay inuu casharkan barto. daawadayaashii qiimaha iyo qadarinta inaga mudanow, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qisadeenna oo xilligaan oo kale aan la wadaagaynay. qisadeenna ood kala socoteen youtube-keenna Qiso Waana TV. waxaan rajaynayaa inaadna siisaan subscribe, like iyo share. waa sii wadi doonaa qisooyinka. fadlan ina dhiirigeliya oo ina siiya garabkiina, hanala dhaafinina subscribe-ka oo ina gaarsiiya meel wanaagsan. mahadsanidin.